shantan arrimood keligaaga ha kugu ekaadaan cidna ha la wadaagin. Qof walba waxa uu leeyahay sir u qarsoon oo uusan cidna la wadaagin. Waxay noqon kartaa sir adiga kugu saabsan ama qoyskaaga gaar u ah, kuna habboon inaysan bannaanka u bixin. Sababaha siraha loo qarsado waa in laga feejignaado dhibka dadka iyo hadalladooda xunxun. Inta badan dadka waxay sirtooda la wadaagaan shakhsiyaad u dhow ama ay ku kalsoon yihiin. Saaxiibadaada way ogyihiin wax walba adiga kugu saabsan iyo wax walba noloshaada ku saabsan, balse ka ilaali arrimahan khaaska ah. Number 1, fikradahaaga hoose. Waxaa jira fikrado aad ka qabto mowduucyo ama arrimo taagan, balse haddii aad soo bandhigto aadan hubin waxa ka dhalan kara. Tusaale ahaan, marka ay jirto dood aadan aqoon buuxda u lahayn, waxaa laga yaabaa in fikradahaas ay yihiin kuwa ceeb kuu soo jiidi karaa. Sidaas awgeed, cidna ha la wadaagin fikir noocaas ah. Waa inuu sir ku ahaado adiga. Number 2, caawinaad aad qof samaysay. Waxyaabaha sirta ku ah waxaa ka mid ah dadka aad garab siisay ama aad ka caawisay dhinacuun. Xitaa diinteena Islaamka waxayna faraysaa inaan qarino sadaqada aan bixinay. Waxaa la doonayaa inay gacantaada bidix aysan ogaanin waxa ay bixisay gacantaada midig. Wanaagga ay qayb ka tahay in dadka aad baahidooda dabooshay aadan meelaha ku sheegin ama saadanba ku faanin. Haddii aad fagaarayaasha ka sheegto arrintan, dadku waxay kaa fahmayaan qalad, waxayna u malaynayaan inaad caawinadaas u samaysid si aad ugu caanbaxdo. Number 3, yoolalkaaga shakhsiyadeed. Qorshayaasha aad damacsan tahay inaad noloshaada ku horumariso waa inay sir ku ahaadaan. Cidna ha la wadaagin xogta kugu saabsan yoolalka aad leedahay, sababtoo ah khasaare ayaad kala kulmi kartaa adiga. Dad xunxun ayaa laga yaabaa inay xadaan fikradahaaga ayna kaaga hormaraan waxaad damacsanayd. Number 4, noloshaada hoose. Waxyaabaha ku saabsan noloshaada hoose ee la doonayo inay sir ku ahaadaan waxaa qayb ka ah ceebahaaga gaarka ku ah ama balwadahaaga. Sidoo kale waxaa qayb ka ah arrimaha ku saabsan qoyskaaga. Sirtan waa xasaasi, waxayna ku habboon tahay inay adiga keligaaga kugu ekaato. Waa suurtagal inaad la wadaagto qof aad si buuxda ugu kalsoon tahay haddii aad doonayso la talin. Number 5, xaaladaha hoose ee qoyskaaga aad ka soo jeedo. Waa xushmad daro inaad dadka kale la wadaagto waxa ka dhacay guriga reerkiina, oo ah arrimo ku fiican in la qariyo. Tusaale ahaan, khilaaf dhex maray waalidkaaga ama walaalaha oo salka ku hayo arrimo xasaasi ah. Waxyaabahan oo dhan yaysan ka soo bixin guriga qoyska, sababtoo ah ma jirto cid xaq u leh inay wax ka ogaato. I hope inaad wax badan ka fahantay. Intaas ayuu ku egyahay. إن شاء الله أنت المقال كحقا نبتقليو فرحتكو ورا دمانتين.